kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aan toddobaadkan ku eegi doono dhibaatooyinka iyo tacadiyada heesto Soomaalida tahriibka ku ah dalka Liibiya. barnaamijka waxaa naga xusuusina inaad ku maqli doontaan waraysiyo maqal codad ah oo aan la yeeshay dhowr qof oo kala gedisan. dadkaasi waxay isugu jireen dad dhowr jeer la kala iibsaday qaarkood welina ku jira gacanta maleeshiyada heesata iyagoo xabsiyo ku jirana nala hadlay. waxaa ku jira gabdho ku dhex umulay xabsiyada ay ku jiraan, kuwa la faraxumeeyey sida ii sheegeen dadkii la socday hortooda lagu laayay, kuwa ku naafoobay jirdi loo geystay, iyo sidoo kaleeto falanqayn aan ku samayn doono guud ahaanba tahriibayaasha iyo dalkaasi Liibiya dhibkiisa. dalka Liibiya waa waddan kadib markii ay dawladdiisa burbur noqotay qaybo ka mida ay intiisa badan gacanta u galeen maleeshiya beeleedyo ka talinaya dawladduna aysan awood u lahayn inay dhulkaasi gaarto. qulqulka dhalinyarada qaxootiga ah ee Soomaalida iyo kuwa kale ee ka imaanaya Afrika ayaa dalkaasi ka dhigay inay ka dilaacaan tuugo u badan qowleysata aan saldhig ku lahayn meel gaar oo loogu hagaago hubaysanna. xilligan oo la jooga dalka Liibiya waxa uu noqday waddanka kaliya ee xilligan lagu kala iibsado ibni aadanka oo gacanba ay gacan u dhiibayso. dadka in la kala iibsado waxa u dheer tacadiyada kale ee jirdilka, kufsiga iyo sidoo kale dilalka ay qaarkood budadkii ulaha dadka markii lala dhaco nafta ka dhacaysa iyadoo muddo aad u dheerna xabsiyo lagu hayo oo aan la quudinin sida ay ii sheegeen dad marqaati u soo noqday tacadigii qabsaday. dadkii lagu kala iibsaday magaalada Musrafa waxaa ka mid ahaa Maxamed Axmed Ilkacaso oo ah wiil 18 sano jir ah kasoo tahriibay magaalada Jigjigo ee Itoobiya. bila waxa ay ku qaadatay inuu wadada dheer ku soo gaaro Liibiya. magafayaal fara badan ayuu soo dhaafay oo uu ka soo badbaaday, lacagana uu ku soo bixiyay. sanado sahaatan waxa ay ku qaadatay dalka Liibiya oo marxalad adag ay ku haysato halkaasi oo caasimada Tripoli uu waqtigan ku sugan yahay. wuxuu iiga sheekeeyay dhibkii gaaray. min dawaacisha meesha nagala soo baxay uu lacag ayuu bixiyay tabaayuu nagatay markaa si uu isagu lacag isoo dira $1 buu rabaa marka kabacdi isagu lacag $1 rabaa markuu dhafurtay wuxuu nigay xeebta agteeda kabacdi uu nagu hayay in badan marka habeenkii uu noo imaanayay meesha cunno xataa ma keenayo habeenkii xabad rooti bas buu keenayaa bas wuxuu dhahayaa lacag baa $2,000 kabacdi naxana anagu markaa hayabaan ku leenahay sababtoo ah dumarna ma jira rag un baan konta wiilo Soomaaliya nahay ma waa gartay marka xeebta agteeda waa gurigu nageliyay kabacdi gurigaas asaga albaab nagu xiray marka lacag $2,000 telefoon buu noo keenay xaafadaha la hadlo $2,000 ninkii soo dira meesha waa ka saaraya dad baa gelinaya wax taas nagu yiri marka anaga xaafadaha waa isku jirnaa in xaafadooda lacag hayso inaan lacag haynin kabacdi intaydii xaafadaha lacag haynin waa fikirnay maxaa inoo xala xaafadii lacag ma hayaan ninkan waana dilayaa maxaa inoo xala kabacdi khalaas anaga intaydii habeenkii waxaan ku fikirnay inaan albaabka jabinay kaga baxno marka habeenkii albaabkii waa jabinay waa ka soo baxnay. kadib markii ay si cajiiba uga soo badbaadeen Maxamed Ilkacase iyo qaar ka mid ah dhalinyaradaasi lagula xirtay qolka maadaama aysan af dal iyo dad toona aqoonin waxa ay gacanta mar kale u galeen nin waddankaasi u dhashay oo uu ii sheegay inuu raacsaday ari midkoodna uu beero ku fashay kadibna sida uu leeyahay u diiday lacagtii yareed ee uu ku shaqaynayay. haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada Tripoli. kulli dhibaato badan waa jirta hadda meesha nabad meelaha kale waxay leedahay dawlad waa laga yaabaa laakiin xagga Tripoli wax dawlad ma laha. hadda xaafadan hadda ku sugan tahay nin baa iska sheeganayo oo ugu sareeyo lagama daba hadlo oo ciidan biska wata ninkaas xaafad kale waa tagi mid kale iska haysta magac kale xaggan hadda waxa iska haysta mid qaniyo waliira meel kale tagi mid haysta meera meel kale meel dawlad kama jirta ma xagga magar waa gartay marka meesha sidii uga bixi lahayn baad kaligeed ayaa faloogeeda ku jirnaa laakiin dhibaatadii anaga hadda meel laga baxaan ma laha next people haddaan ka baxismaana ma ka bixi karno sababtoo ah meeshaad tagto waxaad la kulmaysaa ciidan baa jooga si aad kaga baxda ma lahan marka anaga hadda inkastoo UN-ta la sheegayo balde UN-tana waa tagnaa waxa weli war kamaanaan helin laakiin UN-ta waa tagnaa. inkastoo dhalinyarada Afrika oo dalal kala gedisana ay isugu jiraan dadka tahriibaya ee dhibaatadaasi la qaba Soomaalida haddana dhalinyarada Soomaalida waxa u dheer in muuqooda laga sameeyo lacag aad u tiro badan iyaga oo dhiiga uu ka qubanayo
ooynayana waxa ay la hadlaan waalidiintood iyo hadba cidda ay lacag ka heli karaan waxaana lacaga loogu soo diraa xabsiyada iyo meelaha lagu haysto dadka weli baaqiga ku ah gacanta kooxaha kala iibsanaya waxaa ka mid ah Nimco Cabdiraxmaan oo naga soo dhex wacday xabsiga asbuucii hore waxaa u dheer jirdilka in sida ay ii sheegtay iyada iyo gabdhaha kale ee la socda la farxumeeyey waxaana horteeda lagu dilay oo ay ii sheegtay inuu u geeriyooday jugtii lagu dhuftay walaalkeed la dhashay oo ku welinayay safarkaasi macni dhalinyaro badan baan hadda meesha ku xiran oo aad u dhibaataysan lacaga badan laga soo qaaday tiradii macni gacanta saddexaad maraya lacagta laga qaatay marka aad leedahay gacantii saddexaad ayay maraysaa lacagtana laga qaatay maxaad ka wadaa macni marba meel baan lagu xiranaya oo kolba tuugaana qabsanaysa sid badan kursiyo badan macni dhibaatooyin badan waa naloo geystay haddana aan xorriyadeeda haysan dadkaygiina aan macni wacan karin oo lacagtii aan markaan wacno aan naloo heli karay waa gartay marka saddexda meelood ee kala gedisan ee laydinku qabsaday ee laydinka soo furfuray yaa haysto oo jooga oo idinku qabsaday nima waxaa nagu qabsaday Suudaaneys iyo Jaabays iyo maxaa sheegay Liibiyaanka cad haye marka magaalo waxaa la Baraashaad markii ugu horreysay saxna laga xawishay 8250 waana laga soo qaaday inagoo xeebtan loo wadaan la qabsaday magaalo Umaraanan dhahna lagu qabsaday 6 kumaan laga xawishay haddana waxna laga rabaa lacag $4,000 sababaan ku xidhanahay sadha waa gartay marka bartamaha dalka Liibiya aad ku xirantiin haatan kala iibsiga dadka ayaa markii aan weydiiyay dhalinyaradaasi la kala gatay waxay ii sheegeen in sida xoolaha iyagoo aan ka warqabin lacaga lagu kala qaato dhinacyada kadibna qolaba ay marxabsi gashato mar kale sida ay leedahay Nimco Cabdiraxmaan waxaana ninkii taxiga wana wataysan keenay magaalada hadda aan joogno guriguna geeyay gurigii markuu na geeyay wuxuu sameeyay haddana markii dambe xaashku geeyay Nigeria dad ay ku xariisan yihiin oo dadka lagu adoonsado lagu garaaco markii dambe adigu ninkan aan noo keenay gurigeena nagu hadda aan ku jirno la faansaday muddo markii adigu aad 7 cisha markaan joogno ninka af carabina ma naqaano isma fahmin isaguna ma fahmin Soomaaliga ma garanayo adigu wuxuu sameeyay wuxuu ma qaraacado wuxuu nagu qaraacay ma fahmin anagu dad xeeb loo wadanahay ma garanaysaa dadkan iyagoon baan wato oo marba mid maxaa sheegay dad wax Soomaaliya kama shaqeeyaan meesha Liibiyaan iyo Jaabays nima la dhaho iyo Suudaaneys weeyaan macni Soomaalidu way jiraan kuwa mas'uuliin laakiin kuwaasi waxba ku baawar ay ku leeyihiin habeeraati ma jirto hortooda macni lagu kusada noogu faraxmeeyo waxa noo qaban karaan ma jirto marka tacadiga lidin geystay oo ii sheegaysa maxaa kamid ah hadda walaashay kursiga horta lambarkow ka ah jirdil gaajo sile adoonsi macni waxna looga dhaqmaa sida macni xayawaanka wax kaliya tan loogu kalaamayna waa Soomaali xayawaan ixmaar macni baan ugu dhaay markasta waa gartay marka meeqa tiintir ahaan hadda adigu waxaan ku jirnaa 4 qof kaliya hadda meel ku xareysanahay 350 Soomaali aan hayn aw 350 Soomaalida wax dawladda hadda dadka way raadisaa waa la kala aruursaday ninba meel buu ku xidhay ma garanaysaa waa gartay haddaba inta aanan u gudagelin dhalinyarada qaybaheeda kale dhibaatadaasi ay saameysay juqraafi ahaan dhulka dadkan lagu kala iibsado ee tacadiga badanna loogu geysto ee Liibiya waa mid nooceeya waa kan Bashiir Dhoore oo jaamacadiisii waxbarashada ka soo dhigtay jaamacadda Al-Azhar ee dalka Masar oo isagu xuduud dhow la leh wadanka Liibiya si weyn ugu dhunduleela waxa ka socda dalkaasi marka hore waa maasan tahay Sahra Cabdi waa tahay markaan u laabano taariikhda wadankan Liibiya markaan fiirino run ahaantii siday dadku og yihiin waxaa ka dhacay dagaal sokeeye 2011 markii la riday madaxweynihii wadankaas inta badan ka talinayay Muammar al-Gaddafi maalintaas wixii ka dambeeyana wadanku wuxuu noqday wadan aan la isku halayn karin oo ay ka taliyaan qabaa'ilo kala duwan oo markaas kala taageeraya kooxa kala gedisan oo wadanka ka taliya wadankuna hadda sida oo UN-ku uu sheegay wuxuu ku jiraa wadan fashilmay waxa loo yaqaan failed state taasoo macnaheedu yahay in uusan wadanka la isku aamini karin oo uusan lahayn hay'adihii dawladda oo shaqeynaya marka taas ayaa waxay keentay arrimaha hadda kasoo yeeraya qayladhaanta dhanka qaxootiga ah waxaa sababaya inuusan wadanku lahayn hay-ado dawli ah oo shaqeynaya waa gartay marka taasi waa siyaasiyan bal waxaad marka iiga warantaa juqraafi ahaan wadankan marka inta uu la eg yahay iyo sida dawladda iskaba dhaafay kooxaha maleeshiyadka meelo kala duwan ay u joogaan iyo cid gacantooda gashay inaysan dib dambe u lahayn maxaa la dhahay rajo xataa in lasoo badbaadiyo runtii wadanka dad kooxa kala gedisanaya haatan gacanta ku haya waxaa kamid ah dad militarigii hore xiriir la leh madaxweynihii wadanka mar hore la dilay waxaa kaloo jira kooxa iyagu qaab qabiila u abaabulan oo dadka qaxootiga markay soo galaan gacanta ku dhiga kuwaasoo dee arxan aan lahayn oo run ahaantii waxyaalaha laga soo tabinayo wadanka waxawaaye dil iyo dhac iyo kufsi iyo in dadka ay u geystaan oo xataa ay dadka caadi u gataan oo kooxa kale ay kasii iibiyaan marka
kooxuhu waxawaaye wuxuu kala qaybsan yihiin xuduudda marka la fiiriyo dhankan Benghazi iyo Tripoli iyo maxaa la dhahaa isha xuduudda ay Jad leeyihiin oo inta badan dadka Afrikaanku ay kasoo galaan iyo Soomaalida oo ay kasoo galaan dhanka Suudaan iyo dhanka Masar xuduudda ay leeyihiin Benghazi oo caasimada labaad marka meelahaas ay u kala badan yihiin Soomaalida inta badan waxaa lagu hayaa Benghazi markay kasoo galaan meeshaas inta badan Soomaalida meesha ay joogaan oo haatan fiidiyoyaasha iyo waxyaalahan arkayna looga duubaa inta badan waa meeshaas waa garta marka tacadiga iyo dhibka haysta Soomaalidana maxaad ku qiyaasi lahayd xaddigiisa soo sida hadda dhalinyarada aan wareysanay ay sheegayaan ay ku waramayaan runtii waa mid aan la qiyaasi karin dad la uleynayo dad jirkooda qaar laga gooyay dad la dilay gabdho xabsiga ku dhalay dad maxaa la dhahaa la iibiyey marka de waad qiyaasi kartaa sahroy inta ay la eg tahay arrimaha waxa aan ka hadlayno qofka bini'aadamka markii lagu sameeyo heerka ay qofkaas gaarsiin karaan waad dareemi kartaa waa arrin aad iyo aad looga naxay runtii qalbiga qofka bini'aadamkana uusan aqbali karin Sooda Ibrahim sida Nimco Cabdiraxmaan waxa ay ka mid tahay dadkii igala soo hadlay xabsiga markii ninkii haystay uu siiyay taleefanka si ay ehelkeeda ugu wacdo oo dhaqaale hor leh looga helo Sooda waa gabar da'yar ayadana kasoo kicitintay magaalada Burco aanan haysanin ehel hooyo aababa sanad iyo 6 bilood waxa ay ku soo qaadatay nolosheeda waqtiga adag ee haatan ay ku jirto magacayga Sooda Ibrahim Baruud baa la dhahaa wallahi dibkii tacadiga meesha nagu haysto de waxyaabaha inaan kaaga waramayso ayaa kamid ah maxay tolay waxa ugu xun jirdilka maxay tolay kufsiga maxay tolay yani xayaataad wallahi u qalafsan baa meesha jirta waa gartay meeqa bari ayaad ku sugantiin meesha haatan aad joogtaan ama inta aad carrada iyo dalkii ka soo tagteen ilaa inta hadda aad joogtaan waa meeqa hata aniga muddo sanad iyo 6 bilood ayaan ku suganahay Liibiya oo marba xaraami dhacay oo hadba dhinac qolo ay ku wadato marba dhinac lay wataa maxay tolay hadda muddo sanad iyo 6 bilood ayaan joognaa iyadoo xeebta nolol wataa say inta hor ku sheegtay ayaana la soo dhacay halkana lagu soo qolkana lagu xidhay marka wallahi walaalay xayaataad adag baan ku suganahay ilaahay naga saaray maxaad jeclaan lahayd inaad ehelkaaga ku dhahdo ehelkayga wallahi horta anigu aabay hooyatoona malihi qadarka Liibiya keenay laakiin ehelkayga kulli de qof walba ehel buu ka dhashay waxaan oran lahaa de inkastoo igu soo daalin oo lacag badan iga soo bixiyeen dana waxaan oran lahaa de naf maxay tolay nool lagama quste de iga soo saaran oran lahaa meesha maxay tolay mar saddexaad hadana gargaar ii fidiya marka hadda ayaga teleefanada ayaga ayaa idin siiyey miya si aad ula hadashaan eheladiina iyo maaragtay dadkiina oo lacag ay uga qaataan telefoonka kuwana siiyey ninkan Liibiyaanka baan siiyey oo yiri lacagaha ku dalbada noomana kala Soomaaliya talabaad message risaala dirna risaalada hadina lagu soo celiyo nasiib hadina lagu soo celin waayna ugu nagaraca kasoo dhalinyaradaasi silicsan haddana waxaa jiro kuwa helay fursado dahabi u muuqda oo iyagu qaramada midoobay qaybteeda qaxootiga ay ku soo badbaadisay kalena soo wareegtay maleeshiyadii gacanta ku haysay dadkaasi qaarkood waxa iyaga in la helo sababay iyaga oo joogay meelo dhowdhow tahriibayaashaasi waxa kamid ahaa Najma Cabdullaahi oo ah gabar da'yar waxa ay ku dhex umushay xabsigii ay ku jirtay cunug waxaase ayadoo Talyaaniga la geeyay ee iga warantay dareenkeeda iyo wixii ay la kulantay anagoo joogna hay'adda UNHCR baa noo timid waxay naga qaaday wareysiyo badan bay naga qaaday qoraallo badan bay naga qaaday kadib dadkii dhan wixii adiga caruur haystay dadkii maatada ahaa dadka liita dadka waaweyn oo kale sida maamooyinka xanuunsan oo kale intaas waxay dhaheen in dadka jilicsan baan qaadaynaa saasay noogu yimaadeen wayna caawin jireen kadib wayna soo qaadeen waxay qoraallo interview naga qaadeen waxay noo soo saaray fiisooyin alaadawaali waxaana loo keenay Talyaaniga miyarada lagu soo qaadeen waa gartay ma ladin haystay markaas la idin soo qaadayo oo Talyaaniga la idinka keenay meel baan la keenay xabsiga 3 bilood oo ku jirnay xabsigaas bay noogu yimaadeen laakiin hay'adda gacanta lagu haystay oo cuntada iyo wax kasta noo keenay caawinaysay Najma Cabdullaahi inkastoo la soo badbaadiyay haddana weli waxa ay la nooshahay naxdinta dhowr iyo 10 wiil dhalinyaro Soomaali ah oo la socday oo qaarkood si wadar ah u dhintay oo loo duugay wiilal badan baa jiray aan garanayno oo anaga xooshkeena ku jira oo dhintay adiga ugu yaraan intaan joogno bil gudaheed 12 wiil oo Soomaaliyeed baa meesha ku dhintay oo gaajo iyo haraad iyo nafaqa darro u dhintay TB ma idin la socdeen nala socdeen maalin habeen baa xataa 4 isku mar naga dhimato 4 labana subaxii dhimato labana habeenkii dhintay marka dadka saas ay u dhintaan yaa duugo oo macnaha markii qabaqaabada duugtooda iyo haday noqoto maadaama dad xirxiran oo dhibaato la kulmay aad aheedeen ehelkooda kula xiriirtaan oo ugu sheegtaan qofkii uu dhinto haddana aad duugteen
inta anaga 12 wiil meesha nooga dhigtaman horta telefoon waan helayna marka intaan la soo qaban dawladda bay ahayd waa la hadli jiray reerkooda duugtaankana way kasmi jireen kadib way noo soo duugi jireen wiilasha Soomaaliyeed baan meesha jirtay sida ku soo jiray laakiin inta hadda xabsigan gudihiisa waxaan ooga dhintay labada wiil qoladii hore haystay qoladan dambe isku mid ma ahay marka hay'adda maalin may joogin inta hay'adda maadso wanaagsan kula dhaqmayaan laakiin marka yani sidii hore ma noqonayaan marka labadii wiil naga dhinteen iyagana waa la duugay laakiin wallahi kuma tukan aad baa uga qiiroonay iyagoo salaad ku tukanin bay iska qaadeen hataa kafarna ma soo qaadin way iska soo duugeen meelahaas ku soo duugeen dad islaamina sheeganayaan hal xabaal waradeeda lagu duugay sida Najma Cabdullaahi waxaa isagana kamid ah dadka sida gaarka u helay daryeelka samata bixinta ee hay'adda qaramada midoobay Xasan Cali Muuse oo haatan ku sugan dalka Talyaaniga Xasan Cali Muuse la dhada magaceeda ilaahay ka dhigo qof kasto soo gala waxaa gacmo furan lagu soo dhaweeyaa ul horta koodhe gaajo iyo haraad waad faantay soo maaha si fiican marka runtii waxa weeyaan qof kasto oo ilaah abuurta gaal iyo islaam ciddo doona ahaado madow iyo cadaan wuxuu doona ahaado hadduu soo galo Liibiya qof bilaadana ayaa xidha meel buu geystaa marka sida ahminka oo kale kadibna waxa weeyaan waxa la isku baayacay lacag qiimaha marka waxa uu soo jaray qofka jooga Suudaan kadib lacagta qofku ilaa inta uu bixinayo waxa la dul taagan yahay ul dildalaad iyo in bac marka la dhalaaliyo oo lagu shubo runtii hadda sida loo xanuunjin karo loo xanuunjinaya waa gartay adiga shakhsiyan wali ma lagu kala gato lacag kala duwan ma laga qaatay wallahi walaalay haddaan ku sheego waxa weeyaan 3 jeer baa la gartay oo la iibsaday sida ahminka kale waa la dhacay koow markii uu horeysay meel baan lacag ku bixinay kadib waa la dhacay markiina la dhacay qoladina dhacday lacag bay naga dalbatay haddana madax furashaa waxay tiri lacagta intaasana doona ku horay doonayeen kale waa gartay markaas dabadeedna dadkii waxa weeyaan waa isku farqanaxeen iyo markaa waxa noqotay gaajo wixii markaa waxa awoodi karay waa bixiyeen wixii kale bar waa yaacay bar waa ku meeshii markaa xaaladoodu waxay gaadhay runtii loo dilayay in team bay wax xanuun kale la ku dhufto xaaladda noocaas waxa ay keentay markaa dadkii in markaa lacagta lagaga dhaliyo khasab lagaga qaado wax loo baryootamo wax guryo loo gado wax ummadda islaamka u kacdo ay noqoto waa gartay markaa runtii anigu halkaa aan joogay isla markaa markiina la soo dhacay ee dhibaatada noocaas iyadoo haysato oo ilaa markaa aan lacag labaad aanan ayaa qolo kale soo weerartay oo na doonaysa dhacda anaga haye marka qoladii kale soo weerartay waxay ku guuleysatay inay dhacda anaga waa gartay markii ayna dhaceen waxay nageysteen iyana xoosh amba macnaha waxa taqaanaa ma guri bay nageysatay marka gaara oo kale oo daaradiisa kadibna waxa dabadeedna waxa ay yiraahdeen waxa weeyaan qoladaas lacagta doonaysa lacag yar baan diga doonaynaa marka hore anaga laga dhacay dadkan laga dhacay lacagta marka waxa bixinaysa qof walba 4500 oo dollar Mareykanka adigu runtii haddaan kuu soo koobo xaaladaha ka dhacayay runtii qof soo joogay baan muddo dheer runtii oo ku soo dhex jiray baan ahaa dad badanna usoo shaqeeyay xagga caafimaadka runtii gargaarayay baan ahaa marka waxa weeyaan waxaan odhan karayaa runtii meel lagu tilmaami karayo bil-aadannimo maaha runtii meel lagu sheegi karayo bil-aadannimo oo qof wax garanaya amba runtii waxa weeyaan haddii waa alla abuurta ku sheegi karaya waa meel runtii waxa weeyaan aad iyo aad runtii u adag weeyaan xaaladeedu hadda oo joogto Talyaaniga waa sidee noloshaada iyo xaalkaaga wallahi waan ku cusbay Talyaaniga runtii wali waxa weeyaan xaaladii imika waxay ga hadhay oo ahayd gaajada iyo haraadka iyo xaaladii handidaada waxay ku oranayaan gaxaba iyo sidan macnaha hadallada runtii ay isticmaali jireen iyo diinta 100 jeer lacay waxyaabo noocaas oo kale ayaa iga hadhay runtii iyo ushi waayo waan cusbahay wali xaaladaydu isii wali weeyaan waa gartay marka nolosha maxaad hamiyeysaa mustaqbalka wallahi alxamdulilah rabbil caalamiin wixii Allah subxaanahu wa ta'ala ii qoray runtii seegi maayo ilaahayna subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryaa inuu mustaqbal wanaagsan siiyo insha Allah biidnillahi kariim waa sidaas oo kale aan ku rajeenayaa adiga iyo kuwa kula midka ahba aad baad runtii u mahadsantahay insha Allah biidnillahi kariim adiga inta maqlaysaa hadii ilaahay ka haddaba maxaa ay tahay Soodo Ibrahim talada ay bixinayso waqtigan wallahi waxaan ku dar lahaa horta madaxweynaha Soomaaliya waxaan ka codsan lahaa iyo wixii wax garada inay dhalinyarta soo socota ee tahriibta ku soo socota horta ay isku dayaan inay joojiyaan inaanay Liibiya u soo tahriibin waa gartay inta Liibiya ku sugan maxay tahay gargaar loo fidiyo oo maxay tahay la sameeyo sidii Liibiya looga dhameystiri lahaa dhalinyarta in gajeelasha ku buuxda ee waxaan ku caqiran habla lagu kusanay ku dhibaataysan waxaan oran lahaa maxay tahay codsiga ugu dambeeya horta dhalinyarta soo socota ee ku soo hamiyeysa inay soo tahriibto in la joojiyo
haba yaraatee qof keliya aan soo gelin Liibiya. adigu gobolkeed ka timid Soomaaliya? anigu Burcaan ka imid, Burcaan ka tahriibay. intii ay soo baxday qaabkan adoonsiga dadka lagu kala gadanayo oo qaarkood ayagoo dhiigaya dhaawacyo jirdilna ay ku yaalaan lagu arkayo baraha bulshada ayaa waxaa jiray dhowr wadan oo qaarkood ku yaala Afrika oo arrintaasi caro weyn ka muujiyay. waxa ayna keentay in midowga Afrika iyo dalalka Yurub ay cambaareeyaan falalka foosha xun. qaar ka mid ah madaxda dalalkaasi dadkooda lagu haysta meeshaasina waxay isku dayeen inay badbaadiyaan muwaadiniintooda oo ay kala baxaan xabsiyadaasi. dowladda Soomaaliya wadankaasi waxa ay ku leedahay safaarad uu safiirkeedu ku sugan yahay in muddo ahba magaalada Muqdisho. waxa aan kula xiriiray howlwadeennada safaaradda Soomaaliya ee dalka Liibiya qadka telefoonka. waxay ii sheegeen in aysan haysan amar ay ugula hadlaan. dhowr jeer waxaan isku dayay safiirka oo ku sugan magaalada Muqdisho. si taasi lamida wuxuu ii sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda ay ku wargelisay in aysan wax war oo ku salaysan dadkaasi iyo dhibaatooyinka ka jira dalkaasi aysan ka hadli karin. haddaba ka sokow dhibaatooyinkaasi qabsada dadkaasi muhaajiriinta waxaa dalalka ay sii maraan dalba dalka uu kaga sii xigo wadamadaasi Liibiya ay ka mid tahay ee kala kulmaan dhibaatooyin waxaana ayagoo ka silic dhargay ay tagaan dalka Liibiya qaarkood. marka ay ka baxaan gacanta magafayaasha iyo kooxahaasi hubaysanna waxaa sii sugaysa safarka dheer Mediterranean-ka inay ku sii safraan. shilkii ugu dambeeyay 150 dad ah oo ay ku jiraan caruur, haween iyo sidoo kale dad kala gedisan oo tahriibayaala ayaa doontii waday oo baca ka samaysan waxa ay ku degtay toddobaadkii hore inta u dhaxaysa Liibiya iyo Talyaaniga. dadkaasi waxaa la sheegay in 54 ka mid ah oo rag iyo dumarba isugu jira aan raq iyo ruux ilaa ay haatan laheenin. 8 ka mid ah meedadkooda ayaa la helay, 86na nolol ayaa lagu badbaadiyay. dadkan badi waxa ay ka yimaadeen wadamada saxaraha ka hooseeya ee Cameroon, Gambia, Ivory Coast, Mali, Nigeria, Senegal, Sierra Leone iyo sida la ii sheegay dhowr qof oo Soomaali ah. hadimada tahriibka waa waxyeello muuqato welina dhagaha waxaa ka furaysanaya da'yarta shaqo la'aanta iyo fursad xumada ay ku haysato gudaha wadanka Soomaaliya gobollo kala gedisan. Soomaaliya ayaanan deganeen waqti ku siman rubuc qarni waxaana baaba'ay dhammaanba kaabiyaashii nolosha oo dadka ibni aadanka ugu baahan yihiin in ay noloshooda ku maaweeliyaan. barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan aan uga hadalnay dhibaatada dhalinyarada Soomaalida tahriibayaasha ee ku haysata Liibiya ayaan intaasi ku soo gabagabeynaynaa. si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa dhibanayaashii barnaamijkan igala qayb qaatay ee isugu jira gabdhaha ku dhex cumulay xabsiyada, kuwa siday ii sheegeen kufsiga iyo tacadiga lagula kacayo jirdilada, kuwa dadkii la socday hortooda lagu dilay, kuwa la badbaadiyay iyo kuwa wali xabsiyada ku jira. inta aynu barnaamijkan mid lamida mar kale ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay sidaasi iyo nabadgelyo.